السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هنتين بخيارتها وذا نقدر هنيساي كسر دواذا برنامج توت علمية ذا أنكو قادر ديقدون كودي رجالينتا هوينكا صحفينتا إن السمايسان أما كبيري كران ورشة قالي هذا بها برنامج كوا حمانت نوع السمن أما كقيب قادنا يا وهبلها إنكوا الجلا دول الدجاج إنك الصومالي إحنا صحفيين وقت هاي هاتنا وحنكسر دوين يا هبلها صحفيين مانتا برنامج كوا مرتدى وقتها waxaan kaga bilaabayaa gabadha ugu horeysa oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta deegaanka Soomaalida haye magacaygu waa Shukri wariye ka hawlgalanaba TV ahna gudoomiyaha ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida ee Sarjo Barshoonax bismillah magacaygu waa Khadra Jibriil waxaan kamid ahay hablaha ku nool magaalada Jigjiga waxaan hore u ahaa mid kamid ah wariyaasha ka hawlgala dawladda deegaanka Soomaalida خاصة TV كان هذا الرئيس كانوا كبيحين نبى TV هذا نوع كم ده هيون نهبلها ميديا أهنا دليل هذا مقالة ده واتهاي سيدا واركي سيمبا وحرتشيني أنا ضمان نهبليه أن كسر عسون برامج كأهنا هالصحفيين تدقان كا إن أتوضى برتين بل سؤال شو جوه الرئيسة وحنقول بالله بيا قدوميها ururka suxufiyiinta Serjo ayaan shukri ayaanay su'aashan oo dhahaysa waa maxay xurriyadda ama xaq ay u leeyihiin inay sameystaan urur bulsho waa si wanaagsan Tiriig Yusuf aad baad u mahadsantahay marka ugu horeysa waan ku dhawahay waan idinka mahadcelinayaa barnaamijkan urur in la sameysto urur bulsho dabcan qof walba muhiim bay u tahay oo muwaadin ah inuu sameysto urur bulsho ururadaas oo ah ururo nabadgeliye ah oo dabcan ka madax banaan siyaasad iyo wixii dib ku ah ama lid ku ah wadanka sida ku cad qodobka 31 ilaa 42 ee dastuurka Itoobiya waxa uu sheegayaa in qof kasta oo muwaadin ah uu sameysan karo ama uu xaq u leeyahay inuu sameysto urur bulsho oo ka madax banaan wixii dhibaato ama lid ku ah wadanka u keenaya markaas dabcan anigu imika waxaan ahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta dawladda deegaanka Soomaalida sidaas ay tahay dabcan halkaas waxa kaaga cad in urur la sameysan karo ururkaasi dabcan waa ururka asaasan dawladda deegaanka Soomaalida waliba saxafiyiina qaab dhismeedkiisuna dabcan waa urur ka kooban ilaa iyo imika tirada saxda ah ee ururku waa ilaa iyo 52 qof oo leh 9 guddi fulin ah oo maamula gudoomiye ku xigeen leh afayeen leh dabcan ururku waa urur sharciyeysan oo ka sharciyeysan dawladda deegaanka oo si sharciya dabcan loo maray cadaalada la maray meelo badan la maray oo wada kasta oo sharci ah loo maray marka ururkaasi ayaaba ku cadeynaya in qof kasta oo muwaadin ah uu sameysan karo urur uu markaasi u madax banaan yahay inuu sameysto urur ka madax banaan wax dhibaato ama lidu keenaya wadanka oo una dabcan qalalaaso ku abuureynin marka qofka muwaadinka ah xaq buu u leeyahay sida ku cad dastuurkaasi ama qodobkan hore uga soo dhawaajiyay xaq buu leeyahay inuu sameysto urur bulsho aad baad u mahadsan marka xaq xaq uu leeyahay inuu sameysto qofka muwaadinka urur bulshaha xaq uu leeyahay waa tahay Khadra Jibriil dib siday ayaan ka dhawaajisay wixii sharci u yaalay dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ayaanba ka dhawaajisay oo anigu dib mar labaad ugu noqon maayo laakiin wuxuun baan ognahay qof walba muwaadin inuu sameysan karo urur una xaq u leeyahay inuu sameeyo iyadoo wadanku sidan ka adag yahay 2016kii ilaa 15kii 17kii ayaan anagu urur ka sameynay magaalada Jigjiga taasina waxay xaq aan anagu lahayn inaanu sameyno urur ka madax banaan siyaasad sida urur bulsheed ururadan markaa sameynayni waxay haayeen ururo tabarucaad ah ama suugaan ka shaqeeya ama si kale dhalinyarada deegaanka ugu adeega soo waxaan anigu ku soo koobi lahaa maadaama ayaan intii hore dhamaystirtay qof walba muwaadin ah oo ku sugan dalkiisa xaq ayuu leeyahay inuu urur u gaar ah sameysto iyadoo la marayo waliba dastuurka iyo sharciga dalka u yaala assalaamu alaykum walaal aad baad maasantahay Tiriig kulli qodobkan waa qodob muhiim ah in laga shaqeeyana aad muhiim u tahay sida uu qeexayo qodobka 13 ee dastuurka dalku waa muhiim in bulshadu ay ururo sameysto ururadaasi oo ay dan u arkaan iyagu waxa kaliya oo ka reebma waxa weeye ururadaasi inay lid ku yihiin amba ay wax u dhimayaan macnaha sharciga u yaala deegaanka ama dalkaba
si guud markaa ururo waa la samaysan karaa iyadoo la xeerinayo qodobada dastuurka dalka ee u yaala markaasi dalka iyo deegaankaba aad baad mahadsantahay si guud Aishay adoo raaliya sidee loo samaysan karaa ugu wanaagsan baad is leedahay hagaag ugu horeyn tareegay ma jiro wax sharciga ka weyn marka koobaad si guud mar haddii sharciga uu ogol yahay in ururo kala duwan la samaysan karo waxa weeyuun in loo maro goobihii laga qaadanayay de shatiyadii iyo goobihii loo marayay in la maro weeyay laakiin wax kaloo caqabado iman karto la oran karo waxa asaal loo samaysan karin ma jiraan aaminsanaan cashka ahaan aad baad mahadsantahay adiguna aad baad mahadsantahay ayaan ogsaday aad baa mahadsantiin dhammaantiin intii u badneyd hadalka tiriga ee waxaa soo dhameeyay walaaladay waxaan kusii dari lahaa uun ururo bulsho marka la sameynayo sababaa lagu sameeyaa kolley dhalinyaro haddii meel xitaa iskugu timaado 10 qof in ka badan dastuurku dhigaya inay samaystaan ururka laakiin maxay u samaysan karaan sababta u samaysan karaa waa inay amba hawl ku qabanayaan amba tabarucaad ahaato amba saxaafada ahaato intaas ma ku dari lahaa inay meel ku salaysan taad leedahay ha inay haddaan dhahno urur baa la wada samaysanaya dastuurku inoo wada fasaxay dhammaan shacabka deegaanka oo dhan urur ma wada samaysan karaan waa tahay marka intaas ku soo koobaysaa dabcan aad baad mahadsantahay ayaan shukri waa tahay ayaanay su-aashan xigta adiga ku weydiinaya waxay tahay waa maxay faa'iidooyinka ay xubnaha ka heli karaan ururada shaqaalaha waa maxay faa'iidooyinka ay ka heli karaan xubnaha ururada shaqaalaha aad baad u mahadsan tahay Tiri Yuusuf ururadu faa'iidada laga heli karo soo ma aha in urur la samaysto dabcan faa'iidooyinka laga heli karo waxa kow kamid ah in la iscaawiyo ururadani ay ahaadaan ururo dabcan isku xiran ururku dabcan markaad urur aad ka tirsan tahay adigoo shakhsiya markaad urur ka tirsan tahay waxa tahay qof meel salka ku haya horta faa'iidada koobaad ee uu leeyahay inaad urur ka tirsanaato waxay tahay qofkaasi inuu heli karo waxbarashooyin dabcan urur markii la yiraahdo waxa laga yaabaa ururkaasi in magaca ururka in wax lagu helo hay'ado wax laga helo ama dawli ha ahaadaan ama ha ahaadaan hay'ado gaar oo leeyahay oo caadi ah markaas hay'adahaasi waxa laga yaabaa in magaca ururka ay ku bixiyaan waxbarashooyin ama dalka dibadiisa ama dabcan looga faa'iideeyo ururkii marka ururkan hadaad ka tirsan tahay waxa laga yaabaa inaad fursad u heshid inaad waxbarasho kaleeto aad heshid haday noqoto inuu tababar uu noqdo ama waxbarasho kale oo meel kale ka baxsan ay noqoto sidoo kale ururkaasi waxa uu ka saacidayaa in adigoo shakhsi ah hadii maanta ay dhibaato kugu timaado dabcan hadii aadan meel ku tiirsanay waxa laga yaabaa in familkaaga iyo dadkaaga ay kula tacaalaan oo waliba de laga yaabo family qaar oo awoodi waayay inay jiraan laakiin urur markaad ka tirsan tahay tusaale ahaan hadii lagu xidho kale xabsi lagu geeyo xarigaas waxaad helaysaa dad ku garab istaaga ku dacwooda ku ololeeya hadii aad xanuunsato oo kale oo qofkan uu xanuunsado dabcan sidoo kale waxaad haysataa dad ku garab taagan oo mar walba garabkaaga ah kulay gabdhahiga dambeeyana iyaguna way ku darayaan lama soo koobi karaan leeyahay faa'iidooyinka ay leedahay in urur la samaysto aad bay u badan tahay dabcan faa'iidooyin badan baa ku jirta waa tahay khadra anigu waxaan oran lahaa faa'iidada ugu weyn ee laga helo in urur la samaysto marka hore ururka waxa loo samaystaa dad isku mihnadaba hal urur samaystaa ta koobaad waxa weeyaan inaad helaysid dad kula hiba ah dad kula fikira dad kula mihnada tusaale ahaan imika ururka aynu samaynayna hadduu yahay urur khuseeya waxbarashada waxaan helayaa dad levelkii aan waxbarashada taagnay ila taagan sidoo kale haddii aan ahay qof dhalinyaro ah kadalik waxaan helayaa dad saas oo kale ah caafimaadka lamida isaguna so faa'iidada ugu weyn waxay tahay eed urur ku heli karto sida ayaan sheegtay ururku wuxuu leeyahay faa'iidooyin uu hay'adaha ka helo ama gacan qabadu dawladda ka helo ama arrimaha bulshada kale eed ka shaqaynaysid aad markaa ka heli karto taay ayaan ilowday baa waxa uu yahay qofku wuxuu ka helaa sidoo kale magac waxa ugu weyn imika dhalinyarada deegaanka iyo guud ahaan dhalinyarada caalamka u carartaana waa magac qofka ururkaasi gudoomiyaha ka ah ama ururka ka tirsan wuxuu helaa magac uu la haysanin qofka bilaa ururkii tusaale ahaan aniga Khadra Jibriil maanta haddaan idhaahdo barnaamij baan qabanayaa ama wax kale aan asaasaya waa laga yaabaa wixii ganacsi iyo afaarahaasi inaan anigu personally uga shaqaysan karo laakiin haddaan idhaahdo shacab baan caawinaya
lagama yaabo haddaanan urur aasaasin oonan haysan garbay garab taagan inaanan ururkaasi inaanan wax weyn qaban karin waayo fikirka aniga iga maqan wuxuu ku jiraa walaalkay soo faa'iidada ugu weyneed helaysaa waxa weeyaan inaad midnimo hesho dad kula fikira dad aan kaa soo horjeedsan sidoo kale dad aad isku mowqif iyo isku hadaf tihiin soo markaa faa'iidada ugu weyn baaba ahba qofku inuu helo isagu wuxuu yahay tusaale ahaan anigu khadar ahaan haddaan helo qofka aan ahay de wax iga maqani ma jirto soo qofka aan ururka kula biirayo ama sababta aan ururka ugu biiraya waxay tahay qofkan waxaan nahay isku fikrad isku hami de waxyaabo lagu kala duwanaan karaa way jiraan laakiin markaa mowqifka ama fikirka laga wada shaqaynaya ururka loo samaystay waa hal mowqif ma aha laba mowqif soo fikirka faa'iidada ugu weyn ka heli karaa inaan urur ku biiro waxay tahay inaan helayo garba iyo gaashaanay garab taagan sidoo kale ayaan sida ay sheegtay ururadu isku soo ma shaqeeyaan tusaale ahaan ururka siyaasadoo kale hadda wuxuu leeyahay dad badan oo garab yaacaya ama propaganda soo waxaad la kulmi kartaa xorriyad la'aan tusaale ahaan in jeel lagugu xidho ama siyaabo kale aad iskugu timaadaan ururkaagu wuxuu faa'iido kuu leeyahay inuu adiga kuu doodo laakiin haddii adigoo Trig Yusufa lagu xidho oonad urur ku tiirsanayn aspersonally waxba uma qabsan kartid waa in ehelkaagii qaraabadaadii oo laga yaabo inayna dawladda iyo dalkan ku xidhay la gacan isku gacan ayna ahayn in iyagu ku yaacaan wax weyn inay ku qaban karin laakiin haddaad urur ka tirsan tahay faa'iidada ugu weyn waxay tahay helaysaa in ururkaagii asmiidiyaha kuugu doodo si sharciyana ha kuugu doodo wuxuu doonaba ha kuugu doodo in ururkaagii aad adigu ku tiirsan tahay qof marka family gaar ah leh aad baad maasanta waxaan u malaynayaa caasha inaad fahansantahay su'aashii hadda ay aad baad maasanta Trig iyadoo inta badan ay ka soo hadleen gabdhaha iga horeeyay midda koowaad ee ugu muhiimsan aan isleeyahay waxa weeye waxyaabaha ururku muhiimka u yahay kow horta inuu qofka codkiisu meel fog gaadho waayo qofku markuu kalidii yahay imka Trigo adigoo kaliya amba ayaanoo kaliya maanta haday istiraado wax qabo waxa laga yaabaa waxaas inuu dad badan gaadhin ama bulsho badan ayna uga faa'iideyn karin se marka group leeyahay de hore looga soo maamaho leeyahay qamca wada jir wax ku qabtaan marka group leeyahay waxyaabaha qabsoomaya marka kaliya yahay laguma qabsoomi karo kow horta intuu codkii qofku meel fog gaadho in si group amba kooxa wax lagu wada raadsado kulay lama soo koobi karo faa'iidooyinka uu groupku leeyahay inta badan bulshadu iyadoon awal ku baraarugsanay waxaan moodaa muddadii 3 sano isbedelka uu dhacay in ururo badan oo arrimaha bulshada la asaasay taasina isbedelka si guud deegaanka dalkaba uga dhacay oo hogaaminayo marka faa'iidooyinka ururada lama soo koobi karo hadda ka hor hadayna tusaale gaaban soo qaadano ururada arrimaha bulshadu deegaanka kama jiri karin iminka waxa jira ururo badan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya dadka caawiya samafala de kulay waxyaabaha ay qabtaan wax lagu soo koobi karo qoraal ama saa ama marka si guud ururadu aad bay uga faa'iido badan yihiin dadka kalikalida si guudna waxaan ugu boorin lahaa dadka inay kalikali wax ku qabtaan raba inay iyagoo si kooxa ay ugana magacna badan tahay muuqna uga qurux badan tahay wax qabadkiina oo ka taya fiicnaanayo wax qofka kaliya markuu qabto iyo si wada jira marka wax loo qabto way kala duwanaanayaan aad baad maasan tahay wato ayaan xoogsaday waa tahay Triga su'aasha haddaan isku dayo ururo in la sameeyo faa'iido badan bay ugu jirtaa bulshada waayo ururadu meel kale kama iman bulshada ma ka soo dhex baxeen dhalinyarada ururadaas kamida ururadaasina dabcan waxyaalo badan bay ka saacidi doonaan dadkoo dhan amba waa raya iska dhex arki karaan baan dhihi karaa bulshada deegaanka waa tahay ayaan shukriyay su'aasha saddexaad baan markan u gudbaynaa siday dumarku u samaysan karaan ururo shaqaale waa maxay se talaabooyinka loo baahan yahay inay maraan aad baad u mahadsan tahay Triga dabcan su'aashaada waxaan u fahmay dumarku qaabkay u samaysan karaan ururo shaqaale dumarku dabcan horta inaga Soomaali ahaan hadaynu Soomaali nahay dumarku Triga dabcan waxaad moodaa markasta Soomaali hadaynu nahay in dumarka si gaar loo yarliido oo inta badan lugta lagu yarhayo dumarkii laftirkoodii dabcan qof kastaba hadii isagu uu fikiro uu ku fikiro inuu wax qabsan karo si kasto lug loogu hayo ama fikir khaldan oo dhan oo laga aaminsan yahay qofkaasi waxaan aaminsanahay inuu ka baxayo marka dumarku iyagiiba waxaad moodaa inay xogaa ay yar jiifaan oo ay isleeyihiin calashaan urur ma samaysan kartaan oo kaleete laakiin dumarku urur way samaysan karaan qaabka ay ku samaysan karaan dabcan hadii aan fiirino dumarku marka hore waa inay helaan dhiirigelin maadaama inta badan dumarku
dumarku ay dhiirigelin isaga baahan yihiin oo qofkan hooyada ama wax kale dabcan ay aaminsan tahay in haddii ay dhaqdhaqaaq samayso ay bulshadeeni waxyaabo kale ka aaminayaan marka waxay ku samaysan karaan in dumarku ay helaan marka u horeysa dhiirigelin taageero bulshadii kaga timaado hadday dhinacii dawladda noqoto iyo dhinacii bulshada hadday noqotoba kaga timaada sidaas ayay dumarku dabcan ku samaysan karaan baan isleeyahay haddii aan su'aasha garab marin ururo marka waana muhiim waa laga maarmaan dumarku inay samaystaan urur sababtoo ah inta badan imika markaad eegtid waxaad arkaysaa ururo badan baad arkaysaa oo rag uun ka kooban ama rag ay sameeyeen oo gabadh iyo laba ay ku jirto oo dabcan hal qof ama laba aad ka soo helayso dumar laakiin weli ma arkaysid dumar keligii waxaan imika u malaynayaa hal urur baa ka jiraan u malaynayaa deegaankeena dumar urur dumar keliya marka kuwaasiba waa kuwa isxilqaamay oo dabcan samaystay urur way samaysan karaan marka aniga fikir ahaanteyda dumarku inay gacmaha isqabsadaan oo sidoo kale bulshadana dhiirigelin ka helaan ayay ku samaysan karaan maxay ahayd TC dabatii maxayse tahay tallaabooyinka loo baahan yahay inay maraan tallaabooyinka loo baahan yahay inay maraan dabcan ugu horeyn horta ururkani waa inuu noqdaa urur sharci ah waa inay maraan wado kasta oo sharci ah oo ay isleeyihiin wad ku samayn kartaan ururka tusaale ahaan marka u horeysa waa inay soo samaystaan warqad sharci ah oo sharciyeysan oo ururkii lagu samaynayo dabcan ah in laga ogolaaday ururkan deegaankii iyo dalkii ay joogeen si khaas deegaanka ay joogeen waa inay soo samaystaan sidoo kale waa inay cadaaladii tagaan oo iyadana cadaaladii laga soo ansixiyo waa inay xafiisyadii kale xidhiidh la sameeyaan inta markay samaystaan oo dabcan marka ugu horeysa ay wadada maraan marka dambe waa inay u soo noqdaan abaabulkii dadkii ay rabeen iyo dumarkii ay rabeen in urur loo sameeyo oo iyaga ay abaabulaan kadib ay taageero weydiistaan hay'adaha iyo xafiisyada khusayso aad baad u mahadsantahay kulay gabdhaha kale ay iga sii dambeyn doona aniga laakiin fikirkayga inta ma ku soo koobaya mahadsantahay Khadra Jibril trigi walaal waxa horta urur ay dumarku ku samaysan karaan urur marka la sameynayo sharciga dalka Itoobiya ma dhigayo ururkan sidaas ay gabdho u samaysan karaan ama wiilashu saas ay u samaysan karaan urur marka la sameynayo ama gabadh ha samayso ama wiil ha sameeyo ururka isku si baa loo sameeyaa soo waxaan aaminsanahay in gabdhuhu urur gaar ah iyagu leeyihiin inay samaystaan inay fududahay waayo sharciyaha jira dalka ka jira loo maro waxaa jira siyaabo loo aasaaso in urur la samayn karo tusaale ahaan hal urur baan filaya hadda deegaanka Soomaalida inuu ka jiro ururkaasina uu yahay samafal gabdhahaasi iyaga istaakuleeyay iyaga isgarab siiyay iyaga ururka samaystay wixii gacanay gaar u heleen mooyaane fikirka iyo wax walba halkaasi ku baxay iyaga iska lahaa soo ta ugu weyn ay u samaysan karaan marka waxay tahay marka hore dumarka Soomaalidu inay iyagu fikiraan inta badan waxa mudooyinkii ugu dambeeyay baabade la moodaa inaynu la jaaqaadino dunida kale laakiin intii ka horeysay caado xuno dhaqan Soomaaliyeed baa jiray caadadaas xakameeynayay inay ururku inay tay dumarku gaar u baxaan inay urura ama samaystaan ama ba ku hamiyaan inay meel kale ka taliyaan soo haday tahay siyaasad haday tahay dhalinyaro iyo haday tahay samafal saxaafad iyo wixii la midaba waxaan aaminsanahay in dumarku iyagu samaysan karaan waayo mudooyinkii u dambeeyay anagu waxaan ka shaqeynay ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya soo fikradii aanu keenay qaarkood meel baa lagu maray anigu markaan fikrada keenayay maan hayn wiil laakiin waxaan ka tirsanaa gabdhaha Soomaaliyeed soo su'aasha kale daba socotay ah talaabooyin caynkeeya ayaa looga baahan yahay urur marka la asaasayo waxa jira sharci u yaala sharcigaasi xafiisyo gaar u khuseeya kolba dawladda ama deegaanka aad joogtid ah tusaale ahaan haddii aan imika urur saxaafadda asaasayo talaabooyinka la iga baahan yahay waxa weeyaan marka hore ururkan inaan anigu u sameeyo rajadii iyo visionkii uu lahaa ururkani kadib aan la kaashado xafiiska warfaafinta wixii ka dambeeyana xafiiska cadaaladda toos u tago sidoo kale dhalinyarada like that haweenka kale siyaasadda iyaduna xafiiska xisbiga toos loo tagayo wixii ka dambeeyana xafiiska cadaaladda sharciga ka qaadanaysid marka talaabooyinka ay u samaysan karaan waxa uu weeyay inay sharcigii dalka kolba ay joogaan u yaala inay talaabooyinkii iyo xeerusadadii la raacay ay raacaan waa tahay Caasho Ismaaciil Caashay waxaan u maleynayaa inaad fahansan tahay su'aasha aad baan u fahansanahay sidee bay ururo u samaysan karaan dumarku su'aasha la weydiiyo taasaan filayaa siday gabdhihii ugu horeeyay u soo qeexeen
kulley maadaamay gabdhuhuna imika gabdho wax bartay ay aad ugu badan yihiin qodobka 11aad ee dastuurka dalka iyo qodobka 24aad ayaa aad u qeexaya ururada iyo halka loo marayo iyo si guud marka qodobadaasi ayaa qofkii doonaya si fiican u qeexaya waan leeyahay tan kale mid baan anu oran lahaa si guud gabdhuhu inay ururo samaystaan oo ururo taabagala oo wax qabta ay samaystaan iyaga iskugu wacan waayo gabdhuhu inta badan isma dhiirigeliyaan gabadh haddii ay maanta urur samayso oo tiraahdo ururkaasaan sameeyey waxa laga yaabaa inayna gabadh kale dhiirigelinba iyo ku tiraahdo ururkaasa horumaraya gabadh baa tahay halkaa ma gaadhisid waa inaad gabdhihii dhexdoodii ayaanay ka helaynba dhiirigelin marka laga soo yimaado bulshadii kale marka gabdhaha waxaan leeyahay si guud oon aniguna ku jiro kol iska reebeyn hal is dhiirigeliyo markii la is dhiirigeliyo horaa loo yidhi sacabkaa kaagama horeeya hadda maanta adigoo aad urur samaysan waa inaan anigu soo garab istaago oon idhahdo waad guulaysanaysaa aan dhiirigelin kula ag istaago deeta markaasay ay guusha imanaysaa laakiin intaynu inagu isxaasidayno intaynu inagu aynu xusulka isku xajinayno ma aaminsanin anu imika waxaa jira de hadday gabdhuhu urur samaystaan culaysyo meelo kale kaga imanaya jira ma aaminsanin culaysyo ay gabdhuhu dhexdooda isku hayaan mooyaane marka de gabdhuhu culeysyada isku hayaan iska dayaa malaya kolley aad gabdhaha culayska ugu badan iyaga dhexdooda ka yimaada marka haddii urur la sameynayo si guud waa inaa marka ugu horeysa gabdhaha dhiirigelinta laga helaa si kastood waddo qalada ugu socotid waxaa laga yaabaa raggu inay ku dhiirigeliyaan ku dhahdaan waxaas waa qalad laakiin hadda saa u samaysid way fiicnaan lahayd ku dhaaba laga yaabaa laakiin gabadh ma dhiirigeliso ta kaliya ururada gabdhuhu ay u horumari lahayn waa taa marka si guud gabdhuhu ay is dhiirigeliyaan ay isgarab istaagaan ururada gabdhuhu imika gabadhu waa hooyo weey gabadh wax baratay waxay la mid tahay bulsho wax baratay haddii urur gabdhaha la helo waa urur bulshadii oo dhan wax u qabanaya meel ayna raggu ayna wax ka arkin ayay dumarku wax ka arkayaan dumarku waa hooyo daldaloolooyin badan bay ay arkayaan oo ay aaminsan yihiin wax badan inay ka bedelaan bay aad u weyn oo aan uga rajo weynahay marka gabdhuhu ururada ay samaysanayaan gabdhaha kale ha ku garab siiyaan ha taageeraan ha dhiirigeliyaan deeta wax kastoo wacan markaas la gaadhaya su-aasha kale si daba taale ahayd halkee baa loo maraya si guud xafiisyadii ay khusuusay inta badan ururada waxaa dhaca oy ku fashilmaan marka horeba ururka fishankiisa iyo mishankiisa lama garanay maanta la ururaya waxa leeyahay urur baan samaysanana ururkani muxuu qaban doonaa halkeebu u socdaa halkee inuu gaadho maxaa u qorshaa waa inaan wixii oo dhan ay cad yihiin waxaad qaban lahayd halkaad u socotay wixii qorshe ku ahaa qorshahaagii sanadlihii 6 biloodlihii 3 biloodlihii waa in wixii oo dhan ku yaalaan deeta markaasi xafiisyadii ay khusuusay ayaa de markaasi aad u baahanaysaa inaad garab ka heshid aad baad mahadsantahay waati aad mahadsantahay ayaan xoogsaday aad baa mahadsantahay tiriga walaalaha hadda su-aasha isku daya sidee dumarku u samaysan karaan urur dabcan waxay dumarku urur u samaysan karaan horta hablaha shaqaalaha deegaanka haddaan dhaho hadday isku xidhan yihiin urur leeyihiin dabcan waa la ogaan lahaa dhibaatooyinka dumarka laakiin dumarku waxay aaminsan yihiin dumar waxba ma qabsan karaan rag ma balaa wax qabsada saa darteed guryaha fadhiyada sidii loo hayay dabcan way siyaaseen waxna ma qabsan karaan bay dumarku is aaminsiiyeen laakiin anigu fikirkayga haddaan ka hadlo way samaysan karaan urur hadday isku xidhan yihiin oy dee iyagiiba gacmaha is wada qabsadaan dabcan way samaysan karaan sii daba taala sidee tallaabooyinkay u marayaan kolley urur marka la sameynayo laamuhu khuseeyaa nabadgelyada noqoto cadaalada noqoto dariiq loo maraa jira urur marka la sameynayo intaasaan kusoo koobi lahaa waa tahay daawadayaal iyo dhegaystayaalba weli waxaanu ku guda jirnaa waa barnaamijkii dood cilmiyeedka ahaa waanu kusii socon doonaa bal ayaan shukri markaagan iyo maxaa ka hortaagan dumarka oo caqabada inay samaystaan ururo shaqaale waad mahadsan tahay tiriig Yuusufay mar kale dabcan waxba kama hortaagno anigu sidaan aaminsanahay waa la helay caqabado yar yar oo dumarka la soo darsa oo inta badan sidii aan hore uga soo dhawaajiyay oo kale Soomaalidu inay aaminsan tahay in dumarku dabcan yar liiditaan uu jiro sidaas darteedna iyagu laftirkoodii ay markaa isu liidayaan laakiin caqabad kale oo sabab kale oo hortaagan ma jirto sidii ay walaashay ka dhawaajisay Caysho markii horeete su'aashii hore ay ka dhex sheegtay oo kaleete dumarku iyagiiba is dhiirigelinaynin sababaha ka hortaagan ee ugu caqabada ugu adag ee dumarka hortaagan aan waxaan oran karaa inay jirto isku kalsooni la'aan iyaga dhexdooda ah sababtoo ah dumarkii iskuma kalsoono iyagii baan is dhiirigelinaynin waxa laga yaabaa
inaad gabadhu hadday urur samayso oo urur ay maanta ay ku dhawaaqday samayso oo ay kula timaado adiga ay ku tiraado ururkaas sameynaya garab isi halkii aad garabka ka siin lahayd inaad ku bilowdo inaad gabadha xaasidnimo iyo sidaad u reebi lahayd marka xogaa dumarka ma aqaano markii hore waxa la yiri feer qaloocan baa dumarka laga abuurayo xogaa waxa ku yir jirtay yar waxaan ka dhamaanin xaqdi laakiin dumarka wax caqabado kale ku hortaagan ma jirto waxa fiicnaan lahayd oo dabcan inay bulshadu sidii aan markii hore sheegayba ay dhiirigelin bulshadu wax kaliya dumarku waxay u baahan yihiin aan idhaahdee in dhiirigelin ay helaan oo ay ka helaan laamihii ay qusaysay si ay u samaystaan urur iyaga oo khaasa oo ay wax ku qabsadaan laakiin wax caqabado kale oo inta badan ku hortaagan inay dumarku wax samaystaan oon ahayn caadooyinka dhaqamiga ah caadooyinka dhaqamiga ahna haddii iyagu ay la yimaadaan isku kalsooni iyo adayg iyo isku duubnaan dumarku dhexdooda way ka gudbi lahaayeen dabcan caadooyinka dhaqaniga markaan ku leeyahay sida inay gabadhu gurigeeda joogto kaleeto la yiraahdo gabadh wax ma qabsan karto in la yiraahdo gabadhii banaanka u soo baxday shaqo qabato kaleeto waa ciyaal suuqada ma waxaas oo kaleeto waxaas oo dhan waxay kaga gudbi karaan iyagoo aan geesna maraynin oo baal maraynin diintii iyo aan xijaabkii tuuraynin oo dhinac maraynin oo laakiin iyagoo diintoodii haysto oo dhaqankii wanaagsanaa aynu lahayn iyo dhaqanka Soomaalida wanaagsanaa ku dhaqmaya ayay urur samaysan karaan waxna qabsan karaan dumarku aanu sidaasan ku leeyahay khadri iyo gabdhaha kale ay ka sii dambeyn doonaan anigu ayaan shukriintii sheegtay waan ka soo horjeedaa waxaanan hayaa 5 qodob oo 5 qodobba ay caqabad ku yihiin dumarku urur samaystaan caqabada koobaad Aisha Ismaaciil baa ka dhawaajisay oo ah in iyagu isku caqabad yihiin caqabada labaad oo ah iyaduna caado Soomaaliyeed ayaan ka dhawaajisay caqabada saddexaad baa ah iyaguna ragga Soomaaliyeed kulay waan ana si kala qaadi doonaa oo rag badan baa halkan fadhiya caqabada afraad iyadu waxa weeyaan dawladda kolba dalka ka talinaysa caqabada shanaad ayaa iyaduna family-ga ay gabadhaas ka soo jeedo markaan kala qaado caadada Soomaaliyeed iyo maxaa la yiraahdaa caqabada ay dumarku iyagu isku qabaan boo la yaqaana ragga Soomaaliyeed ay ku qabaan caqabado horeeye aan leeyahay saddexaad ay kaga soo horjeedsan karaan dumarku inay samaystaan urur bulsho aan leeyahay rag baa u sababa taasi waxa weeyaan gabadhu wiil bay la dhalatay wiil bay u dhaxday wiil baa dhalay wiil bay dhalaysaa so afartiiba ma ogola gabadhii inay dibadda u baxdo waxa laga yaabaa markay urur samaysanayso ururkaasi ileen gurigeedii kuma dhaxaasaasayso ururkaasi wuxuu baahan yahay inuu xafiis dibadda uga baahdo ururkan wuxuu u baahan yahay in la horumariyo ururkan wuxuu u baahan yahay in laga dhaadhiciyo bulsho intiiba waa inay banaanka u soo baxdo haddaba caqabadaan sheegayaan leeyahay rag baa ka iyagu laftirkooda qayb ka ah waa taasi oo raggii ma ogola inay banaanka gabadha u baxdo waxaa jira mas'uuliyiin ururkaad markaa asaastay ama samafal uga baahno ama taageero kale uga baahno iyadu baahantay inaad xafiiskiisii ku booqato raggii kuma ogola inaad xafiiskiisii ku booqato aduu siyaabo caynkaas baa jiro ragga Soomaaliyeed iyagu ay ragga kale kaga duwan yihiin walow ay jiraan 1 iyo 2 iyo 3 ayna wada xumayn for example anigu wiilashay la dhashay way dhiirigeliyaan dhiirigelinta ugu weynna iyaga baan ka haystaa so ta aan leeyahay dawladda kolba dalka ka talinaysa dawladda laftirkeedii baa qayb ka ah tusaale ahaan dawladda hadda ka talisa deegaanka Soomaalida gabdhuhu way ku yar yihiin for sure dawladii hore ka jiray iyo dawladaha soo socdana waynu naqaanayo Soomaali dawladeena dhan baa Soomaali ah tusaale imika dawladda aynu ka tirsanay dalka Itoobiya habla badan ayaa meeqaam sare ka taagan ama xildhibaanaha hayaan ama golaha sare dawladda ka tirsanaadaan ama wasiiraba ahaadaan tiirarka ugu adag dalalka waxa haya gabdho laakiin Soomaalidu way ka duwan tahay taasi markaan leeyahay yani dawladda iyadu qayb ka waxa weeyaan dawladii habluhu kama haystaan taageeris magacaabis imika shaqaalaha ugu badan ee deegaanka ka shaqeeya dhammaantood waa dumar waxaan aaminsanahay inay yar yihiin gabdhaha bilaa shaqadii waxa ka badan 90% wiilasha bilaa shaqada si fudud bay gabdhuhu shaqada ku helaan laakiin shaqooyinka ay ka shaqeeyaan dhammaantood waa wada shaqaale hoosaad ma jiraan 4 qof ama 5 gabdhood oo maanta role model inoo adeega Soomaalida marka laga tago gabdho iyagu isdhiirigeliyay for example Dr. Fawziya Cabdiqaadir ma haya role model kale hadda aan kula tartami karo deegaanada kale Soomaalida ama qayrkayga kale dalalka aynu jaarka nahayba
marka gabadha iyadu is horumariso mooyaane dawladda kama haysano dhiirigelin toos ah tusaale ahaan haddii gabadha intay urur bulsho ay asaasto ururkeedu horumaray ay dhaqaajisay lagama yaabo madaxweynaha dalka kolba ka talinaya ama deegaanka ka talinaya intuu u yeedho inuu dhiirigeliyo laakiin tusaale ahaan gulad yare wiil bajaajla buu ahaa dee waa run qof xafida buu haayo lacagtii ilaaliyay sidii loo buunbuuniyey waynu naqaana imise dumara ayaa maalintii celiya waxyaabaha ama xafiiskeeda lagaga tago ama lagaga tago meherada aynu haysano meel walba ma jiro gabadh lagu dhiirigeliyey waxay doontaba ha qabatee caqabada shanaad oo ahay familiga ay kasoo jeeda gabadhu familigu sidaynu naqaano familiyada Soomaaliyeed inta badan ma garab istaagaan gabdhaha waxa laga yaabaa wiilku hadduu maanta yidhaahdaa waan baanahay ama waxaan nahay in loo sacabtumo laakiin gabadha ay isla wiilku isagu ku istaago walow aynu hadda dad ilbaxaya soo noqonayno familiyada aynu arkayno iyagoo garab taagan waxbarasho inay samayso gabadha ururo bulsho everything ay gabadhu markaa ku dhaqaaqi kartay la isleeyahay gabadhani waxay ku noqon kartaa role model familiga ayaa iyaduna caqabad ka marka khadray caqabadahaas aad sheegtay intaasba sidee loo gudbi karaa ama dumarku caqabadahaas gaabka ku ah sidee talaabo uga qaadi karaan ama hore ugu socon karaan tusaalaan ku soo qaato waxaan kugu yidhi Dr. Fawziya Cabdiqaadir waa qof deegaanka laga yaqaano sidoo kale dalalka Soomaalida laga yaqaano aniga waa role modelkayga deegaanka Soomaalida so waxaan aaminsanahay inuu gabadhu kaga gudbi karto caqabadaha aynu soo tirinay iyo kuwa badan oo inaan ogeynba inay iyadu gabadhu noqoto gabadh strong iyo adag inay gabadhu iyadu noqoto gabadhan waxaas oo dhan u joojin inay gabadhu noqoto gabadh iyadu dawladda la tartanta familigeeda wax ka dhaadhicisa ragga la dhashay wax ka dhaadhicisa sidoo kalena xinta iyo xaasidka gabdhahana iyadu ka baydha inta badan caqabadahan waxa laga gudbaa dumarka inta badan ay raggu gacanta siiyaan ayaa caqabadaha ka gudbaa marka leenahay dumarku iyaga isku caqabada gabadhu si walba ay ku garab siinayso haddana dhabarka iyada ka qaninaysa marka caqabadaha ugu waaweyn ee anigu isleeyahay qofku inuu kaga gudbi karo waa inuu qofku isagu gooni ahaado even haddii urur uu samaynayo dee ururka uu samaynayo waa in gabadha uu ururka kula jirta ama ururka xubnaha ka tirsan inay iyadu say u fikirayaan oo ina ahayn gabdha iyada dib u celinaya marka caqabadaha aynu soo sheegnay waxa lagaga gudbi karaa qofku inuu isagu strong noqdo qofku sidoo kale inuu isagu noqdo qof isku tashaday qof isagu raba hiigsi dheer iyo hami sare sawna uu ka ahayn gabadhaasi markay berri guursato inay halkii ku joojinayso hadafkii hiigsiga ay lahayd laakiin iyadoo gabadhii guursatay wada dhashay inay hadafkii iyo himiladii ay lahayd ay ka sii rumayn karto unahayn qofkan qof hadafkiisa istaagi kara anu taas filay in laga gudbi karo Caasha Ismaaciil ku soco adiguna waad mahadsantahay Trig kulli horta wax ka hortaagan gabdhaha inay urur samaystaan ma jiraan aaminsanahay anigu laakiin laba qodob baa jira marka ugu horeysa gabadhu ma aaminsantahay inay xuquuq u leedahay xuquuq dastuuriya inay urur samaysato iyada laftigeeda horta ma aaminsantahay ka horeysa markaad adigu wixii aad aaminsantahay aad wax ku raadsan kartaa gabdhaheenu iyagu ma aaminsana inay urur samayn karaan inay kalidood ay lagu ku istaagi karaan oo ay urur samayn karaan oo ay bulsho wax u qaban karaan gabadhi ma aaminsantahay ka horeysa marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye inagii man aaminsanaynba maanta waxa laga yaabaa inaad amba haddaan anigu wax samaysana amba adigu aad Triga wax samaystirayd inaad ka fikirtid bulshadu say u arkaysaa ma gabadh baa waxa samaysay hadhow maxaa lagu oran doonaa waxyaabada aan inta badan aan muhiim ahayn way talab qodobka labaadna waxa weeye xagga dhaqankii Soomaalida oo inta badan ogolin gabdhuhu inay banaanka u baxaan walow imika gabdho badan oo banaanka u soo baxay gabadha day banaanka u soo baxdo oo urur samaysto oo bulshada wax u qabato intuu inanka raggi qabanaya in ka badan bay qaban kartaa oo imika inta badan xagga dhaqanka marka la yiraahdo aad gabdhaha caqabad ugu ma sii hanaamsana midda kale saddexaadna waxa weeye gabdhuhu in bulshadu ka hor timaado oo inay banaanka u baxaan la diido iyaga laftigoodu saameyn bay ku leeyihiin gabadhi markii ay banaanka u baxdo ay ama urur samaysato amba bulsho qof caan oo la garanaya ay noqoto inta badan waxay noqdaan gabdho aan dhaqankoogii ku faanin oo inta badan laga dayriyo inay dhaqankooga faanayaan inay xijaabkii iyo shareerkii diintii hadduu dastuurku u ogolaaday inaad urur samaysid inaad saa samaysid diintii islaamka iyaduna dhanka barbar socota oon kuu ogoleyn inaad xijaab la-aan ku baxdid waxyaabihii diinta islaamka kaaga baahnayd oo dhan marka waxa weeye in dhaqankii diintii iyo dastuurkiiba iyadoo la eegayo diinta waliba ta koowaad ay tahay in gabdhihii iyagoo xijaabkooga xidhan
oo diinta islaamka maasha Allah ku faanaya inay wixii ay ururkii ay sameynayaan ay sameystaan weey marka laakiin caqabad kale oo ka taagan oo aan sooran karin imka caqabadaas gabdhaha ayna urur sameysan karin ma jirto waliba waxaan aaminsanahay in imika waqtiyadii hore ay ka roon tahay oo waqtiyadii hore aanay jirin ba gabdho inta badan banaanka u soo baxo urur sameysto intan oo gabdhood oo saxaafad ka shaqeeyaba ayna hadda ka hor jirin ba oo dood noocan aan la qaban kari jirin ba marka imika waqti fiican baa la haystaa marka waxaan leeyahay gabdhaha ka faa'iideystaan si guud waa maasantahay aad u maasantahay ayaan xogsaday kolley intii u badneed walaaladeeda soo wada maray hadday dhaqan noqoto haddii diin noqoto waxaan dhihi lahaa dumarku way samaysan karaan laakiin balota iyo sitaankii waxma qabsan kartaan hadday ka baxaan dabcan aad bay u samaysan karaan caqabad hortaagan oo dhihi kara maanta caqabadaasaa hortaagan ma jirto adigu balorta intaad kacdo oo dadkan ka dhaadhiciso ugu yaraan familkaaga kaga soo bilow ka dhaadhici inaad khayr socoto inaad bulsho wax u qabanayso markaad fikirka kasoo dhaadhiciso xaafadiina dabcan bulsho badan inay kugu daya doonto ayaan aaminsanahay waa tahay khadra jibriil mar kale iyo su-aasha xigta maxay tahay haweenka suxufiyiinta ah ama ay ka faa'iidi doonaan in ay samaystaan urure ama ay ku biraanba ururo shaqaale hablaha saxafiyiintu faa'iidada ugu weyn ay ka heli karaan inay ku biiraan urura bulsho tusaale ahaan ayaan shukri ayaa hadda garabkayga fadhida ayaan shukri waa guddoomiyaha ururkan hadda abaabulay doodanaynu galabta u fadhino faa'iidada ugu weyn ay ka heshay ayaa ah inay ayaan tahay qof meel ku tirsan ayaan waxay ka mid tahay hablaha saxaafadda deegaanka Soomaalida sidoo kale hadda ururkan bay guddoomiye u tahay ayaan dawaanka warqaba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ka heshay walow iyadu iga sii warqabta haddana waxaa jira trainingno caalami ah heshay marka gabdhaha saxafiyiintii inay urur arrimaha bulshada ah ku biiraan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ka helayaan waxa weeye TV-ga ay ka shaqeynaysay ama idaacadda ay gabadhu ka shaqeynaysay waxa kala shaqeynaya intaasoo kun oo gabdhood intaasoo kun oo wiil faa'iidada ay ka helaysay ururka ay gaarka ugu biirtay kama helaysa TV-gii iyo idaacadda ay ka shaqeynaysay midnaba waayo trainingkii soo baxay waxa la qaybsanaya intaasoo kun oo qof fursadii kale waxbarasho ama inay meel kale ku aado waxa la qaybsanaya intaasoo qof laakiin ururkii waxa laga yaabaa inuu dhowr iyo 10 qof ka kooban yahay ama 10 qof so fursad walba soo baxda wiilasha ururka kula jira ama gabdhaha ururkaasi ku jira de kolba qof ay fursad siinayaan oo guddoomiyaha ururkaasi isagoo xaq sameynaya buu kolba qof siinaya marka adiga ururka ka tirsan ee saxafiyadii waxaad ka fursad badan tahay saxafiyadii TV-gii ama idaacaddii ay ka shaqeynaysay uun ku kooban marka faa'iidooyinka ugu badan ee ka helaysaa waxay tahay inaad hay'adihii xiriir la samayso inaad dawladii si gaar ah xiriir la samayso inaad naftaadii si gaar ah u horumarisay iyadoo TV-gii iyo idaacadeed ka shaqeynaysaa midna ayna khuseen inaad adigu personal u tahay gabadhu inay ku biirto ururo bulsho ama ururo shaqaale ama iyaduba ay samayso ururkii ay ka mid noqoto si guud ba inay urur gabadhu ka mid noqoto saxafiyadii faa'iidooyin badan bay u leedahay faa'iidooyinka de waxay kala siman tahay horta inta badan waxay kala siman tahay si guud saxaafadii dhalinyaradii saxafiyiinta ahayd bay kala siman tahay faa'iidada uu ururku u leeyahay ururada ay ka helayaan bay kala siman tahay ta kale inta badan gabdhaha saxafiyiinta yihi kullayba sidaynu wada ognahay way ka caqabad badan yihiin ragga marka la eego sababtoo ah inta badan mar hore aan sheegnay oo in dhaqanka Soomaalidu inta badan gabdhaha dhaqdhaqaaqa uu ku yar adkeeyo de kullay diintiba iyaduna dhinac socota laakiin dhaqan ahaana waxaynu ka aaminsanahay gabdhaha fikir xun gabadhu hadii ay dhaqdhaqaaq samayso oo gabadhan ay gabadh shaqeynaysa ama kartile ama ordaysa tahay gabadha saxafiyada inta badan banaanka marka ay socoto bulshadu waxay ka aaminsan yihiin qaar badan baa xataa ku oranaya gabadhan hadlaysa qaylinaysa yaa wax ku falayo kursanayo see la oranaya meeshan baad qaylinaysa ama iska fadhiisatid marka gabadhu hadii ay urur ka tirsan tahay dhiirigelin badan bay helaysaa waxay helaysaa saaxiibo dhiirigeliya walow saaxiibada shaqada kula joogaba aad haysatid kuwan ururka aad ku midaysantihiin laakiin way ka sii xag jiraan mar walba dhiirigelin baad helaysaa mar walba saaxiibo garabkaaga taagan baad helaysaa ku dhiirigeliya xuquuq badan oo waxa laga yaabaa hadii aad kali ahaan lahayd aanad heli lahayn marka urur ka mid tahay inaad heshaa laga yaabaa xuquuqaasi ka mid yihiin sida tababarada kale sida sheegtay
khadra jibriil inaad ama hesho fursad waxbarasho inay gabadhani hesho oo dabcan gabadhani inay noqoto mid ka dhisan garaadka maskaxeed aqooneed si kastaba kullayba gabadhan markay saxafiyadda noqonaysa aqoon bay lahayd laakiin inay sii kororsato aqoon kororsi sii hesho in ay hesho sidoo kale saan horey uga dhawaajiyey saaxiibo mar walba garab taagan oo dhiirigeliya kullay qofku si guud gabadh iyo wiilba markuu ururka ka tirsan yahay uu ka fiican yahay markuu kali joogo fursado badan oo helaynin uu helayaa marka gabadhu inay ka tirsanaato urur siiba gabdhaha saxafiyiinta anigu waxaan mar walba kula talin lahaa inay ka tirsanaadaan ururada waliba imika ururkan jira ay ku soo wada biiraan sidoo kale gabdhahu inay bal iyagu yeeshaan xataa kuwa gaar isu abaabula gabdhaha saxafiyiinta si khaas ayaan uga hadlayaa anigu oo iyagu ay horta labada gabdhood ee wada saxafiyiinta wada ah way iska calashaan way iska xog ogaalsan yihiin kuwa kale imika gabadhan saxafi ahayn waxa laga yaabaa inaynu xogteeda waxba ka ogeyn laakiin gabadhan saxafiyadii xataa haddii aanay aqoonin oonan aqoon isku lahayn waa mid og xogteyda iyo waxyaabahayga shaqadayda iyo rafaadkayga iyo dhibkaan maro iyo dheefta ay soo gasha gabadhaasi way ka warhaysaa xataa haddii aanay aqoonin marka haddii aanu intaanu isu nimaadno gacmaha isqabsanana de way ka sii fiicnaanaysaa waxaan helaynaa dhiirigelin anagii baa is dhiirigelinaynaa dhalinyaradii kale walaalahay ahaa saxafiyiinta ilaaba dhiirigelin dabcan ugula midaysnaa ururka waxaa laga yaabaa dad badan imika xafiiskaaga markaad ku eg tahay keliga aad tahay ama aad xafiiskaaga iyo dhalinyaradan aad ka wada shaqaysan aad ku eg tahay dad yaroo kooban baa taqaanaayo laga yaabo in dadka aad taqaana xataa shaqada aad isku yar xasadaan oo ina aad ku dhiirigelin laakiin urur markaad ka tirsan tahay adigoo gabadh saxafiya waxa laga yaabaa inaad ilaa dhowr boqol oo qof oo saxafiyiin aad maxaa la yiraahdaa meesha ku midowdaan aad heshid ku ka aqoon badan oo wax kugu dhiirigeliya oo in aqoon ku kordhiyo aad heshid oo ku korsiyo ku dhaha xagaas la rabaa xagaas fiican aad ka gashid ankalkaas fiican aad waxa ka soo gashid ku yiraahdaa ku waxyaabo badan kugu dhiirigeliyo kulay dhiirigelin badan baad helaysaa sidoo kale fursado badan bay helaysaa gabadh faa'iidooyin badan bay u leedahay baan anigu leeyahay aad baad mahadsantahay Trigay aad baad mahadsantahay Trigay su'aashaas haddaan isku dayo haweenka saxafiyiinta horta saxafiyiin markaan nahay haweenka kale waan ka duganahay waana ka caqabado badanahay dabcan ha noqoto howlaha shaqeyn hayna bulshada u hayno mar walba haddaan urur ka tirsanin dabcan caqabad badan baad la kulmaysaa familkaaga warkuuma hayaan waxaad ku jirto amba waxaad qabato waxaa laga yaabaa shakhsi saxafiya markay dib kugu dhacdo amba lagu xidho in qofka kuu ololeynaya amba dee dhibaatada kugu dhacday ka warhaya inuu saxafi yahay marka haddii aad urur ku jirto waxaa dhibaatada intaad ku jirto ku garab taagnaanaya dabcan waa ururkaagii haddana urur laakiin ka tirsanayn wax ay kuu qaban karaan shacabka kale ma jirto amba familkaaga ha noqdaan hablaha saxafiyiintiina maadaama ay saxaafadii ku dhex jiraan oo ay caqabado la kulmayaan waxay la qumanaan lahayd inay ku biiraan ururada haya Aisha ku soco wad maasantahay ayaan bala yar kaftamiyo shaqadeedii dhex galso ururada ka soo biiray tiri in kulay aan ururka ma jiro in ururada laga soo biirana fikir ayaa ka horeeya su'aashaan soo noqonta waa kaftan xagga ayaana su'aashu waxa weeyii horta horaan uga samaamahayo falkali forma dhaqda baa leeyahay markaan anigu imika caashaan iska soo qaado haddaan kaliday aan wax raadsanayo oo imika xuquuqiga maqan raadsanayo iyo markaad shantiina niila socotiinayno xuquuq iga maqan si wada jir u raadsanayno isku mid ma noqonayso codkeenana isku si looma dhageysanayo marka koobaad horta waxa weeye in xuquuqihii gabdhaha ka maqnaayo dhan ay helaan markay urur yihiin tan labaad inuu codkoogu meel fog gaadho oo de markii gabdho intaa leego urura oo waxyaabihii ay ka cabanayeen amba waxyaabahay rabeen si fudud loo dhageysto maadaama gabdho de guruuba yihiin oo qof kaliya de jamac dhan aanay isku mid ahayn tan kale marka urur leeyahay waxa laga yaabaa in ururada kale saxafiyiinta dalka ka jira in la midoobi karo sidoo kale inay fandiyo ka heli karaan hay'adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahayn marka ururada aad buu u fiican yahay in lagu biiro ayaan iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka Khadra Jibriil ayaa markan dhankeeda la ii soo jira Khadray maxaad kula talinaysaa haweenka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida ama maxaad talo uga tagi lahayd bismillaah Trigay aad baad mahadsan tahay adiga iyo ayaan shukri iyo sidoo kale ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida ee soo abaabulay doodan galabta halkan ku hayno talada ugu muhiimsan ee kula talin lahaa hablaha saxaafadda deegaanku wuxuunba weeyii
inay iyagu nafsiyan marka hore naftooda ay horumariyaan waynu naqaanaayo deegaanka Soomaalidu uu ka duwan yahay deegaanada kale waayo saxaafadda madax bannaan horowga may shaqayn jirin guud ahaan deegaanka Soomaalida maadaama ay taasi jirtay way ka caqabada iyo maxaa la yidhaahdaa ay ka duwan yihiin hablaha kale geeyiga Soomaalida ah maadaama aynu taa ognahay laakiin sanadii ugu dambeeyay hablaha saxaafadda deegaanku aad ugu soo badanayaan for example anigu sanad ka hor waxaan ahaa saxaafiyad ka howlgasha TV-ga Naba TV waxaanu ka wada howlgeli jirnay ayaan shukri Trig iyo team kale halkaa fadhiya waynu garanaynaa caqabadihii iyo xaaladihii kala duwan aynu soo marnay alxamdulillah laakiin maanta ayaanu saxaafadii ku jirtaa halkii ay shalay taagniinba taagnaa soo taasina waa dhabar adayg ay sameeyeen talooyinka ugu horeeya markaas inaya ay ka mid tahay inay gabadhu iyadu dhabar adeygto sidoo kale inay nafsiyan isku horumariso saxaafaddu oo waxyaabaha ugu fudud in laga shaqeeyo dhan marka loo eegana waa waxyaabaha ugu adag in laga shaqeeyo markaan leeyahay way fududahay qofku khasab ma aha inuu qofka saxafiga khasab ma aha inuu 7 sano sida medicine-ka inta jaamacadu galo saxaafadda soo barto laakiin qofku wuxuu ku shaqeyn karaa iyadoo hibadiisii ku jirto 6 bilood ama sanad ama 2 sano ugu badnaan 3 sano 4 sano inuu qofku qaato aqoonta saxaafadda taa maadaama aynu ognahay in isaasi u jirto markana leeyahay way adag tahayna qofku haduuna hibadii lahayn saxaafadii sidoo uga sii shaqeynaya way adag tahay oo wuxuu la kulmayaa caqabadaha aad u badan marka hore gabdhaha saxaafadda deegaanka ee ku biiraya saxaafaddu waxa talada ugu horeysan siin lahaa waxay tahay inuu qofku yeesho isagu marka hore inay og tahay gabadhu inay hibadan leedahay inay kaga shaqeyn karto saxaafadda waayo waxbarashadu waa waxyaabo aad u fudud qof walba oo hibo lahayn wax waa baran karaa laakiin qof walba oo hibo lahayn ma geli kara saxaafadda saynu naqaan saxaafaddu marka hore waa hibo marka gabdhaha waxaan oran lahaa deegaanka Soomaalida ka hawlgala say ula tartamaan gabdhaha dhigooda ama geeyiga Soomaalida ka hawlgala ama guud ahaan caalamka ka hawlgala inay gabadhu ogtahay inay iyadu hibo leedahay marka hore sidoo kale inay gabadhu waxbarashadii laftarkeeda ay ku biirsanayso inay dhabar adayg leedahay sidoo kale inay raadiso ama ay ogtahay sharciyada u yaala saxaafadda khaasatan deegaanka Soomaalida waayo haddayna gabadhu aqoonin sharciyada saxaafaddu ay leedahay way adag tahay caqabadaha ka hor imanaya si uga gudbi lahayd marka talooyinka guud ee siinaya gabdhaha deegaanka Soomaalida saxaafadda ku jira waxay tahay marka hore as personally gabadhu iyada haysto dhisto qof dhisan iyo qof aan dhisnayn way kala duwan tahay gabadhu markay tahay gabadh dhisan saxaafadiina ku jirta way ka karti badan tahay tusaale ahaan afartiin ay la fadhiya hadda saxafiyiin baatiin laakiin guud ahaan deegaanka Soomaalida hal meeqaam uma taagnayn Trig meeqaam gaaray taagan tahay Caasho Ismaaciil meeqaam gaaray taagan tahay ayaan yaa shukri afartiin dadka deegaanka Soomaalida ku nool ama shacabka waxaad u taagantihiin midba meeqaam gaar midna hal meeqaam uma wada taagnaydin idinkoo laba so waxaan leeyahay qof walba isagu marka hore as personal ah isku dhiso markuu qofku isagu garaadkiisa iyo caqligiisa iyo aqoontiisa u kaabo uu isdhiso ma filayo inay saxaafadda wax kaga maqnaan karaan marka waxaan ku soo koobi lahaa oo anigu talada guud aan siinaya waxay tahay sidoo kale inay la tartamaan hablaha saxaafadda deegaanada Soomaalida ama guud ahaan caalamkaba waliba taa caalamkan awood saaraya waayo inay inagu dhaxdeena tartano wax weyn maaha in Caasho Ismaaciil la tartamo oo warkay shalay sii deysaan maanta sii daayo barnaamijka daraad sameeyaan maanta sameeyo wax weyn kuma fadhido waayo deegaanka waan ku wada jirnaa waana la wada yaqaan sidoo kale geeyiga Soomaalida laftirkeed walow ay qofkii ka sii hamisaray laakiin inaynu daawano oo aynu hormuudi noo noqdaan hablaha saxaafadda caalamka ee la yaqaano soo waxaan oran lahaa marka aynu horumarino aynu halkan maanta hablaha saxaafadda deegaanka Soomaalida ay taagan yihiin aynu ka dhaqaajino idinkoo waliba afartiin ay la fadhiyaan matalaya hablihii guud ahaan deegaanka Soomaalida saxaafadda ku jira aad baad u mahadsan tahay sidoo kale Khadra Jibriil aad bay u mahadsan tahay talo muhiim ah oo aad u fiican bayna siisay anigu gabdhaha waxaan kula dardaarmi lahaa saxafiyiinta ah ee ka hawlgala deegaanka Soomaalida horta waan koobanahay gabdhaha ka hawlgala waa gabdho kooban oo inta badan waliba iswada yaqaano yeenu nahay marka ugu horeysa horta bal inaynu inagu yeelano urur aynu ku midaysanahay inaynu inagu midowno aynu noqono hal far ah gabdhaha saxaafadda ee deegaanka ka hawlgala
inaynu inagu gacmaha isqabsano oo aynu dabcan ku fikiro sidii inagu aynu wax u qabsan lahayn sidii aynu dabcan wax u soo saarin lahayn sidii aynu u shaqaysan lahayn gabdho waxaa jira gabdho cusub oo imika saxaafadii soo gelaya iyo gabdho waqti dheer soo shaqaynayay oo kaga horeeya oo dabcan ka caawin karo waxyaabo badan uga faa'iideyn kara gabadhan cusub ee imika soo gashay inagu inaynu istaakulayno is dhiiri gelino gabadha cusub ee maanta saxaafadda ku soo biirtay maanta ku cusub aynu gacanta soo qabano oo aynu nidhaahno soo kac halkana la maraa wadadana la maraa halkana wax laga qabtaa si dumar ahaana dumarnimo aynu wax u qabsanaan leeyahay aynu isgarab siino oo dhammaanteen aynu noqono kuwa ku midooba dabcan hal urura ama hal fikra ku midaysan kulli hal fikra ay naga wada dhaxeeya sidaan hore u sheegay gabadha saxafiyadii way garanaysaa gabadhan kale caqabada haysata dhibaatooyinka haysata iyo baahiyaheeda way garan kartaa iyadoo aqoon kale u sii lahayn oo sii gudagelin ayay haddana garan kartaayo qof walba hebelow naftaada ka minfalbay Soomaalidu ku maamaadaayo waxaan garanayaa aniga maanta dhibaatada ay haysata anoo saxafiyada iyo waxyaabaha la kulmayo ama wanaaga ama halka booska aan marayo haddii aan wanaag haysta iyo haddii aan caqabadi haysataba labadaba gabadhaas iyadana way igala siman tahay walaashay saxaafada igala midaysan ama saxafiyada marka aynu isgarab siino gabadha walaashaada aragtid maanta inuu wax ka qaloocsan yahay saxafiyada aynu isku dayno meesha yarida ka qaloocsanayd inaynu u soo toosino marka waxaan noqonaynaa dad meel gaadhay oo horumaro sida khadra sheegtay de la tartamay dadkii kale anigu mar walba dardaarankayga koobaad iyo labaad iyo saddexaadba waxaan leeyahay aynu gacmaha isqabsanayno hal mid noqono aad baad mahadsantihiin wad mahadsantihiin kulay talo horta markay noqoto talada ugu muhiimsan waxa weeyaan gabadhu horta saxaafadu ay ka duwan tahay waxyaabaha kale waxa laga yaabaa qofka doctorkii wuxuu daweynayaa inuu qof bukaan oo xanuunkiisa garanayo si lamida macallinku wuxuu wax u dhigayaa arday oo isagu ka aqoon badan yahay oo buugan intuu isagu uga soo dhigo oo ardayguna soo qaybiyo gabadha saxaafadii waxa weeye qofka kaliya u waramaysa bulsho ka aqoon badan qof kasto ay xog u gudbinaysaa waa qof iyada ka aqoon badan in yar baa bulshada lagu tiriya inay qof ka aqoon yihiin bulshada ku daawanaysa 75% waa bulsho adiga ka aqoon badan waxaad sheegaysid intaad garanaysid in ka badan garanay ta koobaadna horta gabdhaha kula talinaya waxa weeye inay aqoontooda dhisaan inay iyaga oo dhisan oo dhinac walba ka dhisan ay warbaahintii ku soo biiraan qoliyaha warbaahinta ku guda jiray ka shaqeeyaan inay aqoontooda ay sii dhisaan ay halka ka sii wadaan tan labaad waxa weeye inta badan iyadoo gabdhaha warbaahinta ku jira ay gabdhaha kale ay ka dhaliil badan yihiin gabadhu haddii ay ka fikirayso maanta tan barnaamij sameeyo waxaas la oran doonaa beritoole iyo bulshadu saasay u arki doontaa qofku marnaba mihnadiisa ma horumarin karayo marka mar kastood wax sameynaysidna inta badan qaladka iyo saxa way isgarab socdaan baa leeyahay haddaad maanta wax saxa aad samaysid qofka qaladka aaminsani isagu wixii qaladkiibu kaa dhex raadinaya marka ma qancin kartid qof walba ma qancin kartid intaasoo bulshadu boqolkiiba konton qofna sax buu aaminsan qofna qalad buu aaminsan bulshada si guud lama qancin karayo laakiin inaynu ku baraarugsanaano inaynu u waramano oo aynu xogta u sheegno bulsho boqolkiiba 75 inaga aqoon badan deetana aynu iska dhisno beeska aynu iska soo dhisno si guud gabdhaha san kula talina 3 sano ka hor deegaanka Soomaalida 7 gabdhood baa wariyaalka ah ayna laba ayna shaqayn jiray 5 qof shaqayn jiray maanta inaynu 20 gabdhood gaadhno aynu 20 gabdhood inaga ay tifiyada kala duwan u shaqeyno waa wax Ilaahay lagu mahadiyo marka gabdhuhu beeska iska soo dhisaan gabadh horta qof ka hooseysa ma jirto wiilka ugu aqoon badan gabadhuna way ka sii aqoon badnaan kartaa walibana gabadha intay doonto wiilka ka aqoon badnaan karta marka gabadhu inay dhigan gabadhnimo nahay gabadhnimo waxa la igu eego inta badan waxa laga yaabaa inaan ku hay caawiyeen gabadh saa ku fikirto adigu ku fikir inaad wiilka caawisid gabadha ku fikirto inay inamada iyadu caawin karto markaasi aad ku fikirtid inaad qof kasta aad u caawin kartid aad adigu aqoontaadii iyo soo dhistid ayaad markaana aad horumarin kartaa mihnada aad baad maasintii waa tahay hadal batriga waa lasoo dhameeyaan dhihi karaa wax dambe oo haray ma jiro waxaan ku dari lahaa gabdhaha suxufiyiinta hawshay hayaan ragga lama sinna maadaama ay u dhaartay hawshii gurigu ay sugayso iyadoo subaxii la soo shaqo tagaysa haddana xaafadii ku noqonaysa oon ognahay caqabada taagan iyo dhibaatooyinka haweenka haysta haddana waxaan dhihi lahaa isdhiganina dhaliisha iyo dhibaatooyinka bulshada aad kala kulmaysaan hawdhigina horumarkii higsiga aad leedihiin rajooyinka aad leedihiin kamira dhaliya dee gabadhu markay guursatay iminka guri yeelato waxay dhahaysaa waan guursaday khalaas rajadaan lahaa saxafiyadda intaasumaan ka aha
intaasun maha laakiin waxaan rajaynaynaa inaan ka gaarno heer wariyaashii waaweynaa halkay ka gaadheen oonan bartaanu kaga hadhin intaasun baan ku jari lahaa. waa tahay ayaan xogsi aad baad mahadsantahay. waan ku laba noqday tirigii sifeey wax badan ku dari maayo laakiin waxaan rabaa uun inaan sii xoojiyo oo anigana dardaarankii waliba fikrada fikro ay soo jeediyeen labada gabdhood ee ayaan iyo waliba Caasha labadooda baan ku taageero Caasha waxaan ku taageerayaa in waa run gabdhuhu ay iska soo dhisaan marka horeete garaadkooda aqooneed iyo dhinac walba waliba si khaas ah gabdhaha saxafiyiinta ah gabadha inta badan labiskooda iyo qaab socodkooda laakiin gabadha bulshadu waxay eegtaa labiskooda qaab socodkooda gabadhan maxaa ka hortan ma labisata miya maalin walba saas marka gabadha horta ku saxaafiyad markay tahay inay dhinac walba iska soo dhisto waxaan ku sii taageerayaa Caasha tan kale gabdhaha inay ka hadhaan marka ay saxaafiyad markay noqdaan inta imika tusaale ahaan waxaad arkaysaa gabdhaha inta badan gabdhaha iska wada dhalinyaro baan nahay ama single gabadha in lagu yiraahdo ninka tusaale ahaan shukaansanayo kale inuu ku yiraahdo markaan ku guursado waa deynaysaa saxaafadda gabadhii ay hay'ad tiraahdo oo hamigeedu kaliya uu ku ekaa intii ay gabadhnimada gabadha ahayd oo ina reer lahayn uun inay wax noqoto qofka laakiin halka ku fikirayaan waxaan aaminsanahay inuuna waxba qaban karin oo xataa wax tayo leh una soo saari karin laakiin qofku hadii uu ku fikirayo in aqoontaydan iyo xirfadaydan aan leeyahay aan ka gaaro meel sare oo meesha ugu dambeysay la gaaro inaan wax qabsan karo oo aan wax tayo la soo saaran karo waxaan qabsan karo marka gabdhaha waxaan kula talin lahaa markaad guursateen aqal yeelataan hada aqalihiina dumiye idin malihi oo idin oran maayo waxa waa ceebe laakiin hayeelina inaad guryaha u fadhidaan oo hamigin intii yaraydun uu ku ekaaday 20 ka gaadheen ilaa waligiin yaalihiin intaad ka gaadhaysaan hamigii aad lahaydeen hawshiina wato waxaad u barateen inaad shaqaysataan oo dadkiina u shaqaysaan kaliya gurigii iyo ninkii una ku mashquulin oo amarkii ninka qaadanine isla shaqaysta oo adoo gurigaaga ilaashanayo hawshii guriga qabsanaya shaqadaadina wadan kartaa intaasaan ku sii dar lahaa si wata aw joojinina nimanka aad baad u mahadsantihiin ayaan shukri oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida iyo Khadra Jibriil oo ah saxafiyad balse walow ay hadda ay ka fadhiisatay ahna shakhsiyaad u ololeeya ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ahna saddex ahna wada khatar ay haysatay oo ah aqoon-yahanad dhanka kale Aisha Ismaaciil oo iyaduna ah saxafiyad ka howlgasha deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale ayaan xoog sidoo iyaduna ka howlgasha gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanka Soomaalida sidoo kale waxa barnaamijka soo agaasimay waa ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida oo loo soo gaabiyo Sirjo barnaamijkeena intaas ayuu noogu eegay barnaamijka waxa idin soo saareysay ama idin qaada dhigaysay waa anigu Atrig Yusuf dhanka kaamirada quruxda badan ee arkaysaan waa walaalkeen Nimcaan Ikhyaar بلا عبد الرحمن بوداية يا أحمد حسن دنك فرسمة iyo qurxintu waa engineer Sarabta baahintu waa engineer Nuruddin Fuad barnaamij lamida intaanu ku kulmi doono waxa idin kaga tageynaa sidaas iyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh